نبينا صلى الله عليه وسلم وحولي الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. waxaa fiican wiilasha laba neef oo adhiga in laga dhigo. axkaamta inta badan wanqalku wuxuu la wadaagaa udxiyada iyo carafada xoolaha la gowraco, shardiga iyo da'da iyo tilmaamaha iyo ceebaha markii la eego iyo inta wadaagi kartaba. فأهريقوا عنه دما dhiig ka gowraca ka qala oo dhiig hala daadiyo neef ha laga qalo. shayga la yidhahdo walqasha sharcigana ama luqada carabigana caqiiqa lagu idhaahdo sida culimmada islaamku ay u badan yihiin waa sunne mu'akada oo muhiima weeye nebiguna samayn jiray sala allahu calayhi wasalam. haddii qofku wakhtigaa ilmuhu u dhashay aanu waxba haynin laguma lahaa. haddii iyada oo uu waxayo wiilaawo ama ka jaahil ahaayo marka dambe loo sheego ama uu ka mashquulo wuu qallayn karaa oo wakhti dambe wuu la iman karaa. haddii waalidku la iman waayana qofku naftiisaba wuu ka walqali karaa. intaba way sheegeen culimmadu. nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay alghulaamu murtahanun bicaqiiqati tudbaxu canhu yowma saabicih. waladka waxaa loo haystaa walqashiisu u rahman yahay iyadoo laga gowracayo maalinka 7 marka dhalmadiisii laga soo tiriyo dhalashadiisii. marka haddii carruurtaada aanaad hore ugu walqalinood xoolo lahayd iminkaba waad u laqali kartaa ama mar uga dhig ama kala dhaadheeree. aabbaha un baana lagu leeyay qofka ubadka mas-uulka ka ah ee hooyada laguma leh. marka waxyaabaha sunnada ah waxaa ka mid a xadiidka salmaan binu caamir aldabbi uu sheegayo radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulka ayaan maqlay buu dhahaya isagoo dhahaya maca algulaami caqiiqatun wiilka waa in ilmaha caqiiqadu waa wanqal wey. fa ahriiquu canhu daman dhiig ka gowraca ka qala oo dhiig hala daadiyo neef ha laga qalo. wa amiituu canhu aladaa wasakhda iyo dhibkana ka zuuliya. qaybtaa dambena waa timaha in laga xiiro. haddaba wiil iyo gabarba markay dhashaan waxaa sunno ah in magac fiicanna loo bixiyo. taxniigaas oo lagu anqariyo timirna lagu anqariyo. loo sameeyo wanqalna maalinta 7aadna loo qalo. wiilka 2 neef baa la qalaa, gabadhana 1 neef baa la qalaa. haddii ay waxaana soo arooray wiilka naftiisa in neef la qali karana way soo aroortay oo rasuulka sala alla alay slam waxaa sugan caqa rasuulullaahi can alxasani waalxusayni kabashan sidaasoo kale inuu hal neef uu ka gowracay oo neefka udxiyada galo oo kalea neefka caqiiqadu isku axkaam bay yihiin. marka taasna waa sunne. waxaa kaloo wiilasha iyagana sunno ah in timahooda la xiiro oo timaha intii la xiiro wasankooda oo dahab ama fida ama adigu wixii lacagoo lahayana miisaankoodii la bixiyo dahaba. yacni miisaankoodu ma badna. ilmo yaroo hadda la dhashay oo yixdii laga xiiray oo timaha yarkaa la saaray kafadii wuxuu uu noqdo oo dahabana in la sadaqeeyo taasina waa sunno wey. laakiin waana wiilashaa la yidhaahdaa arrinkaasi gooni ku tahay. arrinta kale oo ah in ilmaha lagu aadaamo dhegta midigta dhegta bidixdaana looga aqimo taas iyadu xadiidka ku soo arooray waa daciif. marka sunno ma aha. aadaanka iyo iqaamadu midna sunno ma aha. laakiin arrimaha kale waa sunno. almuhim axkaamu lmawluud kutub baa laga qoray. ibnulqayim raximahullah kitaab aad u wanaagsan buu ka qoray. ilaa iyo dhowr iyo 10 arrimood oo aad u wanaagsanna wuu tiriyey. waxaana ugu sii muhiimsanoo dadka in lagu baraarujiye ah caqiiqada oo wanqalka ilmuhu markuu dhasho muhim jiddan buu yahay. waa lagama maarmaan
in ilmaha caqiiqe loo sameeyo wax fiican wey, waa sunna mu'akkada, waajib ma aha, laakiin waa sunno aad u adag weeye oo ku saabsanna xitaa ilmaha iyo jiridooda dambe oo ah xagga baarinimadooda, caafimaadkooda, waxyaabo badan bay ku xidhan tahay. yacni xadiis sheegaya kullu mawluudin yacni inuu ku yahay murtahan bilcaqiiqa buuba u xidhan yahay baa xadiidkaasi yuu tusinaya. marka waxay dhahay culimmadu qaar ka mida baarinimadiisaaba ku xidhan. say doontaba ha noqotee, caqiiqaduna waxaa sunna ah maalinta 7aad baa sunna ah. hadday ku dhaafto waxaa la yidhaha maalinta 14aad, hadday ku dhaaftona maalinta 21aad. intaa wixii ka dambeeya weli waa uun way jirtaa in baahidii loo qabay in caqiiqa laga sameeyo. xitaa qofku hadduu weyn yahay in weli wax laga qalaay waa arrin meesha ku jirta weye insha allahu tacaala. nacam, wanqalku waqti buu leeyahay. waalidka aabbaha waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaa ilmuhu uu qaan gaadho, isagaa lagu leeyahay wanqalka samayntiisa. intaanu qaan gaadhin markii hore ama duruuf ha uga tagto ama kasba ha uga tagee wuu samayn karaa. waxaana loo samaynun sidii loo samayn lahaa markii ay wakhtigeedii joogtay, sidii loo samayn lahaabaa loo samayn. wanqalkuna de waa sunno ee waajib ma aha. asalkiisana waxaa guda neef adhi ah, ama wiil ha noqdaan ama gabadh ha noqoto. waxaa fiican wiilasha 2 neefo adhiga in laga dhigo. axkaamta inta badan wanqalku wuxuu la wadaagaa udxiyada iyo carafada xoolaha la gowraco, shardiga iyo da'da iyo tilmaamaha iyo ceebaha markii la eego, iyo inta wadaagi kartaba. qofka haddaan sheegnay gabdho hadday yihiin 7 hal neef oo geela ama hal neef oo lo ah kaga filan, sida caqiiqada sida udxiyadaba ay ugu filayd. hadday wiilal yihiin oo sunnadii dhammaystireed samaynayana 3 wiil iyo hal gabadh ay ku filan tahay oo 2 neef oo ari ah. haddayba 9 yihiin 2 neef oo geela kaga filan oo 14 uba dhigmaba. hadday 14kii qaybna weli gabdho yihiin 2 neef oo geelana kaga filan, 2 ari ana kaga filan wixii wiilala yahan hal mid gabdhaha hal marna wuu samayn karaa, marar kala duwanna waa samayn karaa. haddii ilmuhu ay qaan gaadhaan ama qaarkood qaangaadh noqdo, iyagay mas-uuliyaddii ku wareegaysaa wanqalka inay iska sameeyaan, waayo wanqalku axkaam iyaga la xiriidhay ahayd. iyagiina dad mukallaf oo hadda axkaamtooda milkiyey wey. hadduu rabo waalid ama qof kale inuu wanqal ka sameeyo markay qaan gaadhaan kadib, idankooda iyo ogolaanshahoodu u baahan yahay. si uu waayo baabul wakaala wey, niyaaba iyo wakiilnimaad kaga gowracaysaa markuu qofkan ilmaha, iyo wilaayo. mar hadduu qaan gaadho wilaaye kuma leh waalidku, biidnihi buu walaaye iyo wakiil kaga noqon karaa markii tasarufaadka noocana la yidhaahdo. saa darteed ilmihii hadday qaan gaadhaan ama qaarkood, wanqalka waalidku wuxuu kaga samayn karaa ama cid kalaa ka samayn karta biidnihim, inay u idnaan wakaalada iyo inuu ka naa'ib noqdo, maadaama xaqii xaggooda u wareegay. wabillahi towfiiq.